بسم الله الرحمن الرحيم سيد عادة هيدبا ولكن دار سعودة السودان وحايقو أي دوبستي وريان دوبي وحن دوريا مركا إن عن رمايسترو إن شاء الله تعالى برنامج كي باقا أها عن أدريو قلمدو هالكا سيئن نوغا برابايا وعن دي شيء يا مانتا هالكا ذيكا برابايا إن شاء الله تعالى سلام الله عليكم جميعا ويسلو الظاهر يسلو سعودة يسلو أبتدون يا مركلاتو وحنكون هاي إن أي دبتنا أي عرض كتير دنعاس ومركا معنا مري هالكا نكسي وضعنا إن شاء الله تعالى dadka aad iyo la socdaahina dhamaantood insha Allah ta'ala klibkan ka horeeyay magaciisa la oran jiray hadda la qadarkeeda ilaa laakiin halkaas ay ku jiraan dhamaantood sidaas isku xiri doonaan oo aan kula hadlayay dadka gobolada dhexe degan mudug iyo galmudug waxaan leeyahay galmudug waa meel dadku heshiis isku yimaadeen waxna ay meel ku dhigteen لما كلا لها عدة دونتين يفضل هنا عليكم السلام ورحمة الله عدة دونتين يفضل هنا وعدة دونتين طبعا ليه كو ريركا مجالات لقى حكومة دجن عدده كمال جار كأنا حل جوني هيا كسران وحعب كي مادنا أيجا أيا مسؤولية الغادون ونرجع أي ككينا ولا قابل مرين دونا إن شاء الله تعالى وسوكو كوبية waxaan ugu baaqayaa in ay ka digtoonaadaan jambalka dawlad burburiska ah tijaabada ah ee lagu tijaabinayo ee lagu danaysanayo ee wato Cabdiwali Cargaas waxaan aad u cambaaraynayaa dadkii ka dambeeyay iyo ninka la yiraahdo waxaan la yiraahdo hebel waxaaf jadwalaha xariga xabsi guriga geliyay mas'uuliyiinta waxaan aad ugu hambaleynayaa oo la hambaliyo baarlamaanka galmudug oo isagu go'aan ka qaatay dagaal ooganimada xaaf xilkana uga qaaday waxaan u sheegayaa madaxda aaday magaalada muqdisho ka tagtay ee aaday meesha la yiraahdo cadaado in ay yihiin dhibaateeyayaal dhibtooda wata loomana baahna inay aadaan kaliya waxaa loo baahan yahay in ay dhameeyaan oo dowladda dhexe qaybta in ay baarlamaanka iyo fulintuba ay ogolaadaan oo ay sharciyeeyaan heshiiskii baarlamaaniga ahaa ee baarlamaanka galmudug ay gaareen waa in ay sharciyeeyaan oo kaliya dadka loo dirayo cadaado wax loo baahan yahay maaha dawladuna way ku qaldan tahay siday u dhantahay arrinkaasiga ah waa inay joojisaa faragelinta waa inay joojisaa go'aanka reer gobolada dhexe iskale kaliya waxa iyagu ay leeyihiin yani seegin ha sharciyeeyaano go'aankii baarlamaanka ee galmudug intaasaan furaya waxaan idin sheegayaa oo kale haddii la ku ron yahay waxa la yiraahdo baaq ayaan doonayaa halkan inaan uga diro ugaaska beesha Saleebaan oo aan aad ixtiraam weyn ugu hayo oo aan aad u qiimeynayo waxa weeye dhaqanka oo laga tagaahi baaba bay leedahay waxaan doonayaa ugaas oon ka kula hadlaya aniga oo ah islaw daahir islaw socdaal islaw abtidoon kana soo jeeda Soomaali hawiye beesha mursade islawgoodi ah si degdeg ah inaad wax u qabato ragga afduuban ee xabsi guriga ku jira aniga oo aad ula yaaban in aadan ka hadlin ilaa maanta oo codkaagii la yahay احترام وين بينك وهينا دقن iyo walaalnimana waa wadaagnaa umada Soomaaliyeedna waxa la doonayaa inaad ugaasnimadaada u muujiso oo title-kaagu ahaado ugaas dhab marti maamulka laguma aha laakiin waxa loo yahay magaalada adigu aad ka talido waayo cadaado waxa degan beesha reer Xaaji Saleebaan ugaas waxaan si cad kuugu sheegayaa in ay tahay waajib ku saaran
ragga ku xiran ee xabsi guriga kula jira maamulkii la wada dhistay magaalada Cadaado wax allaale iyo waxa ka yimaadana adiga qaadaya waayo qabaa'il isu tagay baynu nahay meesha qabaa'il baynu iskugu nimi qaar inay ka maqan yihiin waa sax in Arabay iyo ninka la yiraahdo oo ah madaxweyne ku xigeen Ali Casir oo ah gudoomiyaha baarlamaanka iyo ninka la yiraahdo Xareed oo ah nin asagoo nin dir ah saddexduba ay ka soo kala jeedaan Mariixaan Mursada iyo dir in Cadaado nin ka yimid Baraxley oo xabsi guri ku xirto oo dalaal ah oo doonaya in uu ku danaysto isagu maamulkii aan wada dhisanay sax iyo qalad sidii la doonaa waxa lagu dhisay aan wada leenahay waxaan wada leenahay ama idinku aad ku tilmaantiin ama aad lagu turjumo sax maaha in magaalada Cadaado ay xabsi guri lagu geliyo taasna waxa qaadaya mas'uuliyadeeda beesha Saleebaan ugaas adana lagaga fadhiyo waa magaalada Cadaado martii maamulka lagu laakiin magaalada Cadaado wixii la doono in lagu sameeyo oo dhexdeeda waxay noqonaysaa nin aan marti iyo martidiisana aan hayn karin ama mas'uuliyadeeda qaadi karin ergadiisana dila dhaqanka Soomaalidana arrinkaas waxa uu ka leeyahay diinta Islaamku dawa cadaan doonta jawaabo culus baan doonaya laakiin ilaahay ma ka dhawaaqin ka wahay oo wax laga xishoodo weeye ilaahayna waxaan ka baryayaa inuusan ilaahay xilin rabbi inuusan xilin beesha Xaaji Saleebaan oo ah dadkan aad jecel waxaan kuugu baaqayaa in aad si degdeg ah inaad arrinkaasi wax uga qabato ka jawaabis kaliya ma inaad wax uga qabato xorriyadda ragga saddexda ah ee meesha ku xiran maamulka markaan soo noqdo maamulka waynu wada leenahay haddii aan ku heshiin weynana waynu ku kala tegaynaa haddii aynu ku heshiin weyno waynu ku kala tegaynaa waxaan soo keenay nin walbana meel buu ka yimid waxaan leeyahay marka war dhaqanka la xiriyo diintana la xiriyo meeshan ayaan la burburinin dadka naga maqan aan raadin oo ay kamid yihiin gobolada dhexe oo hal la heshiiyo waxa ay tabanayaan hal la dhameystiro waxa ay raggu waxay tabanayaan hal la raadiyo oo hal la raadiyo ragga inaga maqaneen muhiimka aan iraahdo bashacay kuwa inta la haystay ee argagixisada ay haysatana heshiis haddaan nahay waa iska raacday karnaa iska irin laakiin inta sidan oo kaleeta ay tahay oo dalaal baalashle uu leeyahay waa qaraabanayna alla idinku dhaarshay waa qabaa'ilkii aan ogaa macnaha Soomaalidu maanta waxa firi haddee tay clip hore iga soo gacay baan ku soo xusay waxaan leeyahay محمد فارح عيديد iyo ninka leeyahay leedankeeda leeyahay ninka aldalka maxamed faarax jamcaali meeshii ayna dhigeen dhibaatada in haystaa waxay tahay wixii ay waxan ugu dhaca taariikhdooda dib ma raacno wixii wanaag aan sameeyno taariikhdooda dib ma raacno wixii aan dhinno on Soomaali u dhinnana dib ma raacno waxa leeyahay Soomaalidu way la yaaban tahay Soomaalida aan wanaag ula tagno Soomaalida aan hoggaan wanaagsan noqono Soomaalida aynu isu aqli celino heshiiskeenu ahaado mid Soomaali dan ah yuusan noqonin dan gaar ah oo ama habar gidire ama mursada ah ama hawiyism ah ummadda Soomaaliyeed aan u horseedno meel ay ku nasato ku degto ummadda Soomaaliyeed aan u garawno ummadda Soomaaliyeed aan hormuud ugu noqono wanaaga sax maaha in faray nagu godnaata maalin walba waana gunnimo ayaan qaadana iyadoo oo aan u dabagelayno yaa gunnimada la gaarsiiyay shakhsi baa ina gelinayo حافوك باوحو إنا قلنا يا هادانتي عيب تقليق ونحن إنو دقيا دبتنا وهو أمسينا ما صح ما تاسي صح ما وحن ليه كبر أرو كإستاجا أي نديدنا عن تاريخ نديب ورعنا وح كستا أو إذا روح أما والله قرا أما والله قبيا أو قبي بالله قرا وروح عامين وروانو أضبلني وحوي ثلاثة قبل جاهدة حتى في عندنا في عندنا وين يا نو قامينية دانيست دلال قبل عسايا ما أنت من باوي الدنيا إنه يقول ونقول عليه برجع قبل النمط مسترحاف أو إنه أجنهي أو تاريخ دي سفيري تلاقوا وحن خلت وين وحول جاهزتها عقل لقى العقة إذا كل جين مرتين فكر العقة أما عقل العقة وحاكلية أو إنه الرعنان أقولنا
عقل إيه فكر كل سن لعك بل إلهي بان دو كل شيء ومد الدنيا إن لجوه جامية عقل إيه فكر العقة حجبها سلكيد ونقرنيا أنت صار يبقى أنت بل إنه كبار عندهم حاف أو أن تاريخ يسوقنا سي في جسم غن حاف أن صدق وعيب في سوقاته حاف وانك يهري ودعي بنجي ومد الصومالية دبتنا بحي وعرري إماراتك إسقوا إسلي يعني كل عن شرعي اللي يرادو حتى يحرقن أو توجسها سمديدو دابين باكو قرن لجو قدلي دانو والدلدلات أن دعوة لي أنا هستي لجو قادم أكتب وحكي مرات كتير ما شقيستوها وكيش شقيسون ودرسنا مركو تشوفي كودي بالقوية شيء العكتي عن شورتها هذا قفك الصومالي أما قفك أجنبي ماشي الجوجة با كل عقلي ودش وكل عقلي دلكي بوك بيحكروا ما أنت دم فكري بوك يعني إن سي ودل كان وقبحوا العكس كانوا بيحكروا إن الصومالية تجو أو بلدلكيسي كنا نولان كنا سوق نولان ولا وفكر كي أو كي كل جيت كنت شيء اللي قلت لي يا بابا صندوق ميد كاللو قاعدو إن لا صاروا أو اللي قد تشيو ما قال هذا مقدسات دبيتنا محمد سياد بر لوجا دعيو عفوا أنت والله صوت هذا ديار بس تذكر حيس وديني سيدي وصندوق وحجري كرا صورنا في قبة توبي ماي صندوق والله اسك قاعد كرا ما شدت كنا لما نحدقه والله قاعد كرا وأنا نفسن كرتان ماشى لقليو ميتك حمر اللي جاي حمر كل اللي جاي واحد ولدي إيه ضدك بالله شيء يقول لي يري thank you very much وما سنت هاي ضاهر وكل شيء حاف واحد عاي مركي ماشي لكني ميتك أنت راسم حاف إنه نولي ولا أول بقى والقطة شدي ولا جاي وصبحي ايش هو صبحي اسلامي انت صومالي انا waxay lahayd sirdoon aad u culus maxamed siyaad barre waxa loo sheegay xaaf waxa la xaaf diyaaradii markay soo xaaf oo dhinta yalla keen xaaf oo dhinta yalla keen waa la duuga hadii way barnaga aasiri waa tiirahay u timid islaamaynta maalinta ku xigtay xaaf waa noolyahay oo saasay qisada u dhacday kelmad buu yiri aad u qaaliya aad u macna badan أنا حسيت دونه ولقي كوا يقدم بينا ولا وتاريخ حصل أو حفلة وعير منو لي ها وحد عيا ما هنتكرنا هذا ها مدلك يسيو خيامي ها مدلش شيء وتجي ها آخر كي من العقبة القوية شيء ها ما أقعدي إن دلك يسيو يهي مهمة دكتور ها واحد سميسين معنا بدن سمين ما ينك ما أنت ميت سوى عملك أنا مت سمايا مركا وعيري عيوغي وكبري ننكي عني با كليتا عيوغي وكبري ننكي عني با كليتا ورنقسي دايا دلكي سمسوكنا كاس نننا ماهن ناقنا ماهن دقنا مرها إنساننا ماها حيواننا ما حيوان كليتا إنك وضع إنك دايا ننكي انتاس أسوكو كورانسلي ولي إنو نوالا ضربا حق أمرها إنه نهضو حقنا أمرها إن قف قعنت قد شاء مشرع قبته يوم هل نقدر عن نجسي تاعي وكبري منك يقنا يبقى كليته يا وحي أنا كسي اللي تبتغني أنت كي ما راح كدك تيبقى كسي اللي توعنك والله بالله تالله أنا أسقبنا لمن يوم النول رنت مركي يسوع شاكتة قيس تاسيل أو رنت مركي الله شيء بيسيدا أو رأيو عينك الله مرنايو ما مركي اللي هذا قيسو سوق قيس تا رنتي نعمتها يا واقع لكن أمدلًا إن أن بنت مريوه يا مشاعر تشك سال السرنوان ولا يهرب شيء لحنا ولا هرنا ولا يقولون أجري رنتا هذا هو تقول عيسى وقت كيسو حق قيسان وحقيقة حق قيسان وين ولكن إن ظاهر مقعيس لا إيرادو أيام كانوا قصقري محو عيب هو سنين تاس عيب كوين هرت إني جتان وما يستوى قدم كلامات والرحاف ميان أهي إنكي آدو قيدين شم بقول أسطري dadkii Soomaaliyeed ee brimageyda ee jareerka ahaa jareer weyn beesha la yiraahdo intuu beeraheedii dhacay ku qasbay inay u falaan waliba xog markii taasoo Maxamed Faarax Aydiid uu ku saaciday cid la shaqeynaysa iyo Asmaan Cad Soomaaliland garab
sawmaha ninkii ku taajiray xooga dhiigga ummadda Soomaaliyeed ee barimageydada intuu muus ku abuurtay oo xoogoodii uga shaqaystay beerahoodii iyo xoogoodii dabatan ka taajiray miyaan xaafayn oo ay ceebta u dhiman ma ceeb buu sameeyay baa ilaahay wuxuu inaga qariyay daalinka rabbi inaga qariyay taasoo dhibaato weyn daalinka baa ilaahay inaga qariyay saddex ilaahay baan idinku dhaarisay xaaf miyaan ahayn ninka maanta aan joognay bal isagoo siyaasi sheegana waa qaraabanayna waa hee qaraabanayna kelmaddaas maxay wariyaa kelmadda la danso inuu ka xaaf meesha uma imanin in uu u shaqeeyo ummadan inuu ka shaqaysto buu yiri waa qaraabanaya bal ilaahay baan ku dhaarshay waxaas hadda waa maamul dhan oo dowladeed xubin kamid ah weeye baarlamaanka uu taas ku soo galay lacagtii xaaraanta ahaydna wuxuu ku noqday madaxweyne waxa weeye marka caqliga lacagta ku dhisanay isirkiisa iyo asalkiisa waa kaas waxaan leeyahay marka war isirka war fikirka iyo caqliga ku dhisan iyo diinta ku dhisan lacagta aanu joojin ee caqligu hatalayo maanku hatal aanu la yeelano hal abuur macquul oo asal ah oo ujeedadiisu eegsata war aynu garab istaagno sidii aan diidno xuma aynu aniga codkaygu wuxuu aynu diidno daalinkeena hogaaminaya ee haadamaha banagu ridaya si aan nagula aqoonsan in aan nahay beelaha ugu liita gobolada ugu liita dadka ugu dadnimada xun dhaqan laawayaasha diin laawayaasha ummadda Soomaaliyeed shaki weyn bay inaga qabtaa waana sax waxaa ilaahay ina siiyay taladii iyo dhaqankii sababta oo ah hadba waxa ay in aydid baan horboodaya xaaf baa ina horboodaya qanyara ina horboodaya soodi baa ina horboodaya war ilaahay baa ku dhashay war miyaynan dad jira ahayn war miyaynan waxa xun diidi karin waxa sanna qaadan karin waa wada ognahay qof walba aad u sheegto oo tirada war qofkani masaxay ugu leeyahay qalbiin haddana ficilka qaadan maayo isdaaysa taas masaxba taas waxaan leeyahay aynu ku gadoodno aynu arrinka ka gadoodna leeyahay waayo waxaan doonayaa maanta waxa la isku qabtay waxa ay xaaf waxa dhibaatada ay ka taagan tahay baan sheegayna sheego horta waxa la isku qabtay waa mucaawinadii sababta keentay khilaafkan waa mucaawinadii turkigu keenay jiray mucaawanada turkiga oo u keeno dadkan tacbaanka ee masaakiinta ee baabacsan ee qaarkood aad ogeydeen wiilkii Saleebaan oo inta geed dhuunta iskaga xiray iska laalaashay markuu arkay ilmihiisii iyo naagtiisii oo 7 maalmood qadsan waxay afka saaraan nala yiri inda xumidooda iska qaray oo akhira u guud inkastoo aysan fiicnayno ay ahayd inuu Allah xaqii oo yiraahdo ilaahaba abaartana keenay aarankana keenay doonay iska adkayso hortooda ku dhintay dameerkii baa diiday dameerkaasaan doonayaa maantana inuu waxaan oo kala diido dameerkii taas diiday ilmaha ilxamadooda diiday ilxamada baasha Saleebaan iyo xaaf iyo dalaalkiisa iyo waa qaraabanayna waa inuu diidaa abaartaas jirtay ilmaha deeqrayaan waxa la soo diro ee ay keenaan turkiga oo mar walba ay keenaan cadaad waa lagu iibsan jiray tiiba maanta ka daba tag yeelato dawladda dhexe ay tiri waa istaajisay waad ogtihiin oo dawladdan maanta timid ee dhexe iyo maamulka ay u samaysay iyadoo ku abtirsanaya dawladda ku abtirsanaya musuq iyo wax daba marin banaanka ka tahay waxa dhacay marka intaas la isku khilaafay wuxuuna doonayaa inuu wixii iibsado waxa uu doorashada u soo galay iyo waxa uu ku gatay kursigaana waa in uu umadan gato wixii ay cunayaan isaga waxa geeriyoonaya iyo waxa dhimanaya waxa keenay taasal la isdii waxa deeriya Cabdiwali Cabdigaas hanta boosta ama hanta maran iyaduna Puntland maanta ilaahay ku saliday ama jirteen ilaahay ku saliday baa ku sahmisay gol ay baa lagu sameeyaa balna soconayso iyo sharaf sakin balna soconayso dadkan dad waxa ka socon karaan ma umaleyn ma ka socon karaan laakiin waa doqol lagu soo waa qaraabanayna bal qorna iyo xirday dhulka dhanka umadaas sharafkeedii iyo qiimkeedii iyo qiimihii ay lahayd iyo waa qaraabanayna alla idinku war macaseeya war nin ari gadayo saylad ari dhex jooga waa qaraabanayna يا الله يدك ما أفكيجا مسيسجاي ما بين بان كشيء جاي ما درياو
taasi maaha dhaqan wax la qaadan karana maaha wax la qaadan karo oo beeshan iyo dadkan iyo goboladan dhexe lagu yaqaano waxa aan ogahay maaha waxaa dhacay hadda ka hor bal fiiriyaasay u kala fog yihiin aan ku sheegaya magaalada ceelbuur leelaan uu ku abtirsado baa hadda ka hor waxaa yimid waad ogtihiinoo 2 gaal baa lagu dilay oo talyaaniga beriga gumaysiga oo mid walba looga dhigayay inuu ka noqdo barasaab ka noqdo degmada oo laga xukumayay galguduud ama baasa mudug iyo aalta mudug gaalkii ugu dambeeyay waxaa oran jiray daldalo ninka maanta aan tacsida u soo dirayay ee magaciisa la yiraahdo ilaahay how naxariistee nuur ibraahim ugaas faracade ugaas muumin oo loo yaqiinay nuur daalaco naxariistii allah ka sawaabiye naxariis janna allah geeyay heestii loo qaaday la oran jiray nuur daalaco ninkii qisadaas ku timiday magol qaadiisay awowgii oo ugaas faracada baa wuxuu sameeyey baa haystay kana dambeeyey dilalkii talyaanigii gumaystaha ee magaaladan loo beeshu waa ku midaysnaad isaga ayayna ku tiri yaan dhaf macal cayr iyo duduble inta meeshaa hareeraysa iyo wacaysle kulligood waa ku midaysnaayeen in la dilay gaalka laakiin hoggaanku markaas wuxuu ahaa ugaas faracad maalin maalmaha ka mid ah daldalool markuu yimid gaalka ugu dambeeyay bal u fiirsan dhaqaanadan ilma adeeraysi u kala fog yihiin magaalada markuu yimid gaalkii baa isagoo jan ciyaaraya ugaaskii saas u ciyaaraya waxaa dul yimid wiil faras saaran magaaladu waa magaalo fardood aad ogtiin kala moogeeno bushkileetiyada looga dheelay waa fardo oo labada dooxo ee fardo ku nalay sida nugaal iyo dooxada albuur ugaaskii uu la soo wareegay ugaaskii markii uu soo wareegay bus qoobkii faraska bus kiciyay dabeetana wuxuu yiri nin buu jar la ciyaarayay ninku ma jarteen buu haystay lagu yiri markaas uu warmaan dhow weedan xishoonay war naga daa dal idinkeeda leebel ku qaaday naga daa ciidda naga daa ma ogsida mandhow naga daa ciidda boorka markaas uu ugaas warkii hore war soo dhaaf markaas uu maxaa dhacay mandhow markaas uu yiri waa yeel qolof lahayn waa gaal maanta qolofta waa beejada markaas uu yiri mandhow ma gaalayn markaas uu yiri ha markaas uu istagay salka ka jafta ciidda markaas uu ninkan mandhow ceelbuur anaa ka gaale والله قال قبسني انت رجل نور البور انا قاعد كقال هدي اي نقطه قالوا والعلم ذا الريال والضمير كيد يضلني ما النوع عسى سيديبان انيغو كولا ميدوبي كرا وقرامرنا وهي قرامرنا iyo mabtaas ana wata sideen ku midaaba karna ruuxan leeyahay dadka deegaanka gobolada dhexe guud ahaan aan qabiil afka ugu dhufto mariixan dir ayr saleebaan wacaysle murusade madhibaan iyo cidii aad ku adogtiin oo aan ilaa iyo sarur waxaan idin leeyahay iyo duble qodin iyo xaradin iyo dhurkiin iyo dhaqankiin labada gobol ee aan deganahay umada Soomaaliyeed in laga dhibaateeyo sax maaha ayna taasi taariikh noo noqoto taariikhdaas oo inaan yeelana fiican tan inaan qaadanayna waa inoo gunimo waana inaan diidnaa waa in aan yaan nagula danaysan oo allaqaad nacsa oo liita oo dadnimadu ku liita iyo san sharafta anaga inaga ridin isagoo magaceena ku qaraabanaya waa qaraabanayna nooma qaadanto sax maaha waxaan leeyahay ku fogaan maayo ugaaska Saleebaan waa in uu si degdeg ah uga jawaabaa arrinka aan ugu soo gobol galay aniga oo ah ugaas aniga oo ah isla daahir isla socdaal isla abdoon dhammaan bulshada reer Xaaji Saleebaan dhinac kasta oo ay ka kooban yihiin dumar iyo rag iyo muxuu ahaa hay'adaha muxuu ahaa yaanan fogeyn yaanan dhalinyaro iyo waxba ku daalin inta aad ka koobantihiin yar iyo weynba mas'uuliyad baa idinka saaran maamulka hadii ku ruuya magaalada Cadaado ka dhisan lagu heshiiyey ee aan wada leenahay sharafta tiina mas'uul baad ka tihiin haddaad garan weysiina oo ayaan daro idinka kaligiin idin haysata idin lana qaybsan mayno haddaad waajibkiina gudateena waajibkiinaad gudateen kumana amaanadiina waajibkiina gudateen waxaan leeyahay waajibaadkiina guta yaana hal aadan jirin oo yeysan idin jabin sharaftiini cid aan adinka ahayn yeysan baabi'inin bartii lagu xiray shalay baa khalad dhacay oo wad ugeeyeen oo cali shidda ninkii xiray baad raacdeen cali shiddo ninkii xiray isagoo danaysanaya oo USC burburinaya baad shalay raacdeen waa khalad dhacay khaladka dhacayna niman
aad male wixii tegay tiigsimaad male laakiin tan maanta joogtay tahay in aad ku soo celisiin wixii qaldan waxaan leeyahay raaxaji Saleebaan ustaaga ugaaskana si gaar ah waa inuu degdeg uga jawaabo arrinkaas نوما قاعدين أمد الصومالية وإن أن نقولنا هرسيد ونكسن أن كجربحنا معقول كنا قاعدنا ينا نقولن زولة يا عيا نوما قاعدين تصحنا ما أمد الصومالية وحين نجس جيان هن قلت مبدأ إنه إن صومالية بس لكن إن صومالية بقولي أنا نقول واي هذا يدا وطن دين شيء وحنا نقول يا ضد كمدح بقى كتجي مجالات مقدشة صح معها ماشي أي آذن أي آذن عداده صح معها إن أي واحد بربريان أما وحميان أما وحقلدان بيوادين وإن أي كتشو كان دولة الدحية واجب كسارني وحوية برلمان كجل مدق وكنتش لي وأنا صحيح بس وإن أي أقلاده أنا عديان haddii ay sameeyaan waa bay sameeyaan haddaysan samaynin da wax seegaba maaha waa in ay maamulkii galmudug baarlamaankeedii wuxuu yidhi keliya waa inay sharciyeeyaan bal cabdi baalka muxuu ahaa ninka la yidhahdo liminkur baalka muxuu ahaa bahalka baktiga ahaa baalka ii sheeg jaadolihii xaaf haddii uu xaaf uu samayn karo jabhadeyn karo ha aan aragna sharciyeeya idinku حق بيقولين برلمان كوشلنا إيجا كياني ما ترى إيجا ريدي كلام شرعي وي مركز دولة الدحة هشيس إيو حق بلش عدلا إيو نقلنا أي سنة إيدو شقة أي سنة كل يسجلنا شقة ذي لها قبصة إن أي معمول كالمدق ويكسر بحي أي أضرار نكلي تنسوا وحنا هذا مهم بريين يا برلمان كالمدق وحلك كقاضي شاطر قرابته حاف بلك وقاضي وقرابنا ياكو يفهموا هذا ايضا مدى الصومالية واحد بدن وان كتغي دبان وشي دورا هدي الله قادر كاهي او اذمو وبوحه تاريخ با iga buuxda watan horwada dadka uu weynay oo guun soo jiraan hay oo noox iyo gadaashii duufaanka guurkii badii jirtay gabiyada dhulkii geegsanaan jiray meesha uu ku kala go'ay gardafuy han noqotay wali goobta baan aan leeyahay nin qabiil ka dhashay oo qabiil haysan kara ma jiro wallahi billahi iyo tallah been bad moodini ninka la yiraahdo marka cali gacal Saleebaan hadduu haysto iyo haddii Sacad haysto hal la kala cadeeyo maamul ma haysto dowladna ma haysato ee qabiil weeye ee ninka haystay ha cadeeyo waxaan leeyahay si degdeg ah xorriyadiisa isaga iyo Arabay iyo xareed bad degdeg xorriyadooda loogu soo celiyo حنا يمادن مقالة مقدشو مركا أي مامولكا ماشي تاجان دق مقالة مقدشو صدق هذا بهو تاجان وقاس كسليمان بان اللي قصوي يعني دق حرية ده اللي سؤالي وأفضل بان ليه هو كريمنال وعنا ليه هي على عصر إن كان يراد على قعل عصر يعني إن كان يراد عربي يحرد فالك الوقف سدي وكريمنال وي وأفضل حاجة اللي بيراه أفضل وي أرجع حساء محكمة وإن أتكفرتين أنا أقول وإذا كنت ساعد دونا حافنا وإن كرك وجستس كأنه مروي هدي أن دولة إنه ولي أي سنة قاعدة ما يستري من عالمية جدا والسياسة وبضع فرع لقليل ده كان نقل سياسيين عاين ويأفضوين برعد بدات بينو دلي غوريي بداس كلوميستا ku jira maanta ninka ku afduubay dad ee guri ku xirtay sharciga qabanaya waxaan leeyahay Saleebaan ha guto waajibkiisa
nimanka la yidhahdo haddii lay ku rooyahay ninka kan haystaa hina nimanka raggan haystaa ha sii daayaan gebi ahaan waa in nagu marti uguma ihin haddaan nahay gobollada dhexe maamulka aan wada dhisanay adna marti uguma ihin xaafna wuxuu doona nagama yeeli karo waa in waxa weeye degdeg waa in listan waxaan ka xumahay inaan weli laga hadlo ka hadlay laakiin waxaad ogaateen beelaha ay nimankan oo ka dhasheen waxaad ogaateen kartida dadka idin hogaamiya qiimaha ilay inaanay dad macna leh aysan ahayn gebi ahaantooda awan dadka idin hogaaminay aw dadka guddiyada idin sheegay aw dadka yaa ka hadlay ilaa aniga mooyaan anigaasna naf iima ogola waxaan rabaa oo kale inaan ii sheego ilaaway master xaaf oo xalay maana biro dhariga soo wada taasaan rabay adbo inaan waa ilaabay xaaf wuxuu ila soo hadlay wuxuu yidhi aqoon badan isla aniga walaalkay bay isla shaqeynayeen cabdisalaam wuxuu ahaa guddoomiyaha bangiga ganacsiga iyo kaydka laanta sarifka lacag qalad xaafna bangigu ku shaqeynayay way isla socon jireen rag walaalaha maaragtay waaweyn marka aniga aad iiga weynaayeen labaduba xaaf ina socdaalta haa markii uu isoo wacay warbaahintan baas iyada dad badan ku baray ina socdaalku doonaan hel ogaaday wuxuu yidhi waa kaa qaaday cabdi risaaq adiga iyo dhammaantiiba walaalayaal waxaa dhacay markaa wuxuu yidhi imow galmudug imow meesha la yidhahda cadaado markaasaan maxaan kasoo doonaa waa marka uu soo dhaqo xalay maaha hore waxaan maxaan kasoo doonaa wuxuu yidhi warniyow shaqa inoo taale kaala shaqadan la qabo waxaan rabay shaqadu maxay tahay waxba qarin maayo xaafow ama ka xumow ama haddii lay ku farax anigoo ummadda soomaaliyeed baan ballan kasta wax kasta oo aan tiri siisanaya ummadda soomaaliyeed anigu day shahaado suur noqon ma karo been sheegi ma karo runtaan idin sheegaya asagana uu sheegaya xaaf wuxuu yidhi kaalayo shaqadan qabo waxaan rabay shaqadan maxay tahay cudur kaalayo shaqada dhinacaaga qabo waxaan rabay shaqadan qabtaa wuxuu yidhi kaalayo in adeerow gacli wuxuu rabaa ujeedada marka fiiriya horta intaan iraan idin sheego waxaan warniyo xaaf anigu jaamacada taxoda markaan sii hadalno jaamacadan dhigtaa markaan markaas inuu eed kana jaamacad ku dhigtaa markaas aan rahaa markaas war waxaan lacag ahayn baad ka rabtay waxaan lacag ka ahayn miyaad ka rabtay may war lacag halkaan ay buuxdaa soo baxay walu fiirsaya waxaan ri waxa ay dhiman bilay baliikaay bal xaalad wuxuu ri kaalayo hawshan qabso oo dhinaci wuxuu rabaa marka beelahan murusade inaan cali casir walu fiirsaya inuu meeshii ugu gufeeyo waa meel ceebitaalo waa meel quruntay waa meel wuxuu rabaa inuu ugu gufeeyo tuba boosaneera ka baxda tuba boosaneera ka baxda buu rabaa inuu ugu gufaysto waxaan leeyahay xaafow waxaan rabaa kasoo tashan horta xaafow waxaan kuu sheegay haddan kula hadlayaa waxaan ku leeyahay horta anigu gufo boosaneero tubadeed lagu gufeeyey ninka adiga kula tashada ama adiga adilay ku ron yahay ku xoojiyeed magac inta wax u magacooda kugu raacayna bedelkayga waa kaas allana iima kaa keeno kuna iman maayo dhaqankaasna malihi ceebtaasoo kale tara qaadan maayo soomaali baan ahay inkastoon sabool ahay haddana waan sariigtaa saxaabadana ma horsado dowladda waxa aad waato maamulka adigu waatee la yidhaha aan qaraabanana kamid naqama karo asal baan ahay islaw miya anigu soo boode caseeya baabuurta dhaq bangiga tag boob abudabay tag sanduuq isku soo rid ciyowgii waa ka beriyey ninkii cunay baa ka liita billiqayste beera islaamid qabsade xoog islaamid ku qote dadkiisa dhace waa qaraabanaynaa haddana aakhirkii magacaagu waa qaraabanaynaa ma ihi kuwana iman maayo waxna kula wadaagi maayo maamulkaagana kamid naqan maayo iguna gufaysan maysid gobanimaana ka xigaaye taw aan kula taliyo adiga xaafow waxaan ku leeyahay xaafow xilligii waa laga soo gudbay qabqablaha waad moogtahay waad habsaantay 1974 kabihii la xiran jiray ee dhadharay bitcoin biskad gashantaa surwaalkii elefantaha baad wali xiran tahay ee barigaasi la gashan jiray shaatigii dhexda ku dhaganaa baad wali gashan tahay iyo timiha afrilaha ee weynaa ee xilligaas habsan baa tahay waxa laga gudbaday waqtiga maanta jira la qabso war waxa kadib dhacay war amxaara dhulka timid war xamar baa laga saaray war maxkamadihii baa yimid waa taad ogeed war al-shabaab baa timid war doctor argagixisa ka jirta war dowlad war shariifa yimid war xasan sheekh war waxa yimid farmaajo iyo firi xilligii waa laga gudbay qabqablanigana maanta shaqayn mayso iyo aan qaraabano maanta shaqayn mayso sidii aad nabad ugu noolaan lahayd kaliya isku day waxaad yeeshaa dadkan ka dhex tag
wax kale to aan ku farayo inaba Allah ka dhigay adiga ma jirto aniga horta wax adiga sugayay go'aanka aniga horta sugayay waa kaas adigana kuma lihi maamul toosi iyo hawshan wax ka qabo ku dhimaayay waxaan ku leeyahay dadkan si degdeg u qata maxkamad sugana wata intaas aan waxaad ku deeyay way hadda iyadan marka ninkaas degdeg oo in loo sii daayay dawladda dhaxana waa inay meesha aadin waa idin sheegay suldaanka ama ugaaska beesha Saleebaan inay degdeg uga joogta waxa aan wada leenahayna waynu wada leenahay cidna martii ugu ay hadda iyadan ummadda Soomaaliyeed waxaan kula dardaarmay ummadda Soomaaliyeed dhamaanteedba ummadda Soomaaliyeed dhamaanteed waxaan kula dardaarmay in ay ka midoobaan cudur qabaha virus in ay ka midoobaan haddii alle idinkeeda la yahay fayraska joogtada ah ee joogteeyay baabi'intooda iyo dhibaatayntooda iyo u hiilinta maalin walba ay xaqooda u daba joogaan kii luminayay in ay ka haraan kana midoobaan si ay u gaaraan aayo cilmi ku dhisan oo soo celiya magaca Soomaalinimo iyo jamhuuriyad xoog leh oo leeyahay jamhuuriyadda Soomaaliya ee dadkeedu ku midaysan inay higsadaan kana haraan hadba kan horbooday oo sida Xaaf iyo Cabdiwali iyo Shariif Sakari mid kale waa in aan la idinku danaysan xaqiinana marti aadan ugu noqonina dalaalka tuuga ee ku gadanay intaasaan kula dardaarmay ummadda Soomaaliyeed taariikhda waxaan ku gelayaa in aan runta idin sheego in aanan been sheegin wiil telefoonada diginta inaga dhigay waxaan leeyahay markaa waxay taariikhdeedu wiilkaygu wuxuu ku abtirsan doonaa wiilkayga Zakariyaan oo kula sii dardaarmaya maalinta aan god ka galo inuusan xaqiiqadana ka gaban runtana uu u sheego cid kasta oo ka hor timaada waxaana wiilkaygu kula dardaarmaya dhaqanka anigu aan leeyahay oo ah in uu xumaha diido marxaati beenana uu soo furin waxaan wiilkayga Zakariya kula dardaarmaya maanta tani waa dardaaranay in wiilkaygu uu xaq u heliyo inuu diinta islaamka garab istaago inuu ummadda Soomaaliyeed dhaqankeeda dariiqa ugu wanaagsan ummadda Soomaaliyeed ku hago inuu ummadda Soomaaliyeed u diido ceebta iyo xumaha uuna ka hor yimaado daalinka ku danaysanaya dalkiisa iyo dadkiisa waxaana wiilkaygu u sheegayaa inuu leeyahay dalweyne Ilaahay u nimceeyay inuu umadiisa dadkiisa dalkiisa inuu anfaco wiilkaygu kula dardaarmaya wiilasha kale ee Soomaaliyeed ee asaga la eejka ana waxaan kula dardaarmaya gabi ahaantood inay dariiqaas maraan oo ay Zakariya daahir socdaal abtudan kala mid noqdaan dalkiina gumaysiba daba dhilif u soo dirsaday danaysanaya dhalinta mustaqbalka waxaan ugu tagayaa in wixii anagu aan marnay aad ka fiirsatiin oo aad soo naqsatiin sharaftii dayacantay iyo dadnimadiinii weeqantay in waxaad tihiin barwaaqa dalkiina buuxda dhexdiina waxaa yaalla barwaaqo hal diin baa ilaahay idinkugu barwaaqeeyey oo la yidhaahdo furqaan waxaadna ilaahay idinkugu nimceeyey in xajkii inta aad aragteen ilaahay idin jirsiiyey bal meesha alla idinku abuuraday waxaa ilaahay idinku abuuray meel aad saacadii bar u soconayso meesha aad aragteen adduunyada looga yimaado xajka Maka al-Mukarrama labada xaram ee shariifka ah meesha ilaah ku dhigay ee adinkana uu idinku dhigay meesha ilaahay uu guri idinkaga dhigay iyo meesha uu xaramka idin keenay arka waa nimcooyinka alle diintii islaamku ilaahay idin siiyey dhulkaanu ilaahay idin siiyey barwaaqada ilaahay idin siiyey hal qoomna waa idinka dhigay oo Soomaali la yiraahdo marka waxaan leeyahay wiilkayga Zakariyo iyo wiilasha kale ee isaga la da'da iyo kuwa ka waaweyno waxaad sameeysiin wixii aan nagu dhacay taariikhdii in qabsatay waxaan maanta ka doonayo yaan dalaal iyo daba dhilif idin qoqobin dad wada hal jinsiyaatiin qoom waaxid oo magaciisa la yiraahdo Soomaali diintoodana islaam tahay iskana wada midab waxaan leeyahay anigana jannada Allah igeeyo idinkana markaad iga daba timaadiin jannada Allah idin geeyo ifka intaad joogtiina nabad ku waara iyo barwaaqo iyo diinta islaamka oo aad xoojisid wadardaankii wiilkayga iyo wiilasha aan adeerada u ahay ee Soomaaliyeed ee wiilkayga la da'da argagixisadu way noocyo badantay
iska ilaaliya gumaysiga kala qoqobaha daba dhilifka danaystaha iyo dalaalka iibsanaya dhulkiina dalaalka gumaysiga u ah dhulka iibinaya badda iibinaya waad ogtihiinoo waxaan soo marnay xilli baddeeneenin uu la yidhaahdo magaciisa cumar cabdirashiid cali sirmaake ma garan kare uu qamri iyo xiiran siistay dalkeennii baddeenni meesha ugu barqada meesha badrool ku jiro oo aan filayo kuwa iga dambeeyaan waa inay qotaan soona ceshadaan waa kismaayo duleedkeeda ku danaystay maantana weli inta lacag imaaraadku usoo dhiibay uu kula meeraysanayo ummadda Soomaaliyeed dhexdiisa u kala iibiyo waxa weeye annagoo aragnay idinku iska ilaaliyo waxaan kaloo idin sheegaya marka ummadda Soomaaliyeed marka aan ka soo noqday intii oo dhan gabagabada hadalkayga الجمهورية الإمارات المتحدة المملكة السعودية العربية الدولة ايش اسمه مصر العربية وليقود عايهنا كما شغين وليقود وناجينا كما شغين وليقود دمنتنا إيه إنا ينام بدرول كقدم إنا ينام سوري وتلفون ما يسوي إن أين كذب تجين برواقدنا أو أنجاتش كون ورانا سيدا أيجا أن أهورسنا جمعها أو أي نقدان قوة أي كسر ريالنا ورقان نقولنا عن تهوسة أي ورقان سر نقدان بيولي قد سكدي كان كقرابنا يا هنا هو حوي ونن دوني إنه أسجر وحنا أنا قلنا أنقول ماذا أسخاطنا نقول أهانو haddii aan ku daba joogi lahayn caqligiianu hawada yiraahdo waynu doonin laakiin dhegtaada iyo afkaagu ha ismaqlaan oo ma saxba afka inaad maya iga tiraahdo uurkana aad ka raacsanaato sax ma afkiina iyo dhegtiinaan ismaqal aad u kala dheer ninka doonaya inuu habargidirnimo ama sacadnimo ku raaco xaaf ama majeerteennimo ku raaco ninka la cabdiweligaas aanna wax ku aqoonin weliba wuxunayn ba haddana kaas ka hoosdana ka sii liitay وعلى يمر ورقولين يحردين يروحوا يتوجوا ويسكوير هذا ويسوع سانتر حقنا مرتي وجمعين دول كنا يضمن مدهنا يشرفنا مد شرفتنا يسوع مالي كم صومالي نمو أتكلم مرتي وجوا ما دام آدم مرتي وجوا هين أتكلم صومالي نمو هذا مرتي وما يدنا مكان حر إسكدك إنهم جماد يو إنهم جماد كلهم واحد سما يسا صومالي النقو haddii aad weli qabiilku xataa kugu dhariyay qabiilku maaha macnaheed in xumaha lagu doono waa in wanaag lagu doono waa in aad ku tilmaantaa dariiqa saxda waa inaad saxda ah waa inaad ku dhinto waa inaad iskala weynaataa qabiilkaagu waa inuu kugula xumaado xumaa u samayn laakiin markaad ku garab taagnaato beriloqo hoog iyo ba iyo ceeb aad tiraahdaa haddana waa qabiilkii warkaasi waa kan ka shaqaynaya ba-aaga aakhirkan waxaad gaari doontaa inaan gabadhaada guuso waxaan leeyahay aniga oo ah islaw daahir islaw socdaal islaw abtudon aynu ka midaysnaano shakhsiga liita ee xun ee sida xaaf iyo shaf shariif sakiin waa inaan helnaa dowlad weyn oo jirta waxaan leeyahay diinta la garab istaago shacabka Soomaaliyeed ha midoobaan xumahana ha diidaan anna walaalayaal isgarab istaagna annaga oo dhan waxaana hadalkayga ku soo xiraya oo aan leeyahay wax badan inaan ilaabayo shaki igama jiro laakiin dib baan haddana kasoo qaadan doonaa waxaana kusoo xirayaa hadalkayga laa ilaaha ila allah muxammad rasuulallah laa ilaaha ila allah muxammad rasuulallah qolaba calankii duwa caynu inaga kenwa cirko kala oo aan caadna lahayn ee hala caashaqayay Soomaaliya ha midowdo ha diido gulnimada iyo isgarab taagga
inaan gumeedka iibsanaya danaystaha liita ee uu ka mid yahay waa qaraabanaynaa iyo annagu dan kuma qabno dowladda dhexe oo ah waxa ay nimanka ku dhawaaqeen waxaana leeyahay dowladda dhexe inuu garab istaagno waxaana aad ugu hambalyaynayaa ummadda soomaaliyeed oo boqolkiiba 89 maya boqolkiiba 98 isku raacday iskarab taagga kelmadda xaqa ah soomaalinimada dowladda dhexe oo baraha bulshada baryahan iiga muuqanay aad baan niyadda igu dhisan tahay ana ugu hanweynahay ummadda soomaaliyeed maanta waxaa la moodaa inaan leeyahay baalal waaweyn oo aan ku duuli karo maadaama aan ahay wadani dhab ah aana inan gumeed qabyaaladdu meel xun ka gashay ee diinta qabiilka haystaa ee aan soomaalinimada aqoon dhaqan laawaha aan soomaalida aqoon diin laawaha qabiilka aaminsan ee qabiilkiisu ay sharaf darrada iyo xumaanta iyo ceebta maalin walba dhex taagan yihiin waxaan leeyahay maanta waxaan leeyahay baalal waaweyn oo aan ku gaari karo sida gurogari dayax gacmeedka dushiisa maadaama ahayd ceebdiid dadka soomaaliyeed ay la garteen waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed ha ka midoobeen xumaha oo dhan hana cambaareeyaan qof waliba ha cambaarayso kan dadka ugu sikeeya elita ee aan macnaha lahayn waxaan idiin sheegayaa ilaa iyo 1 ruux ayaa ku safan facebookayga waana dhammaayay beri hore oo xiran yahay iga soo follow gareeya beejkayga oo ah daahir socdaal oo af soomaali ah daahir socdaal oo hal ah sida hal uu qoran yahay halka caadiga one inta kalena waxa waaye daahir oo ah delta alpha hotel India Romeo daahir socdaal oo u qoran Sugar Oscar Carlo Delta Alpha Lima 1 saas uu qoran marka waxaan idin leeyahay dhamaantiinba insha Allah taala Allahna barakeeyo gudnimadana Allah naga saaro gobanimadana Allah na tuso Soomaaliyana ha midowdo ha israacdo hana barwaaqoodo dhamaantiinba adna walaalihiin assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh